maareeye ku-xigeenka dekeda berbera cabdi cabdilaahi xasan ayaa jawaab ka bixiyey eedo dekeda uu u soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo sheegay in dekedu ay ka mid tahay waxyaabaha sababay sicir bararka ka jira dalka tan iyo intii dekeda ay la wareegtay shirkadda d b wel. maareeye ku-xigeenka oo waraysi gaara siinayay ariel t v waxa uu sheegay in dekedu ay horumar fiican samaysay tan iyo muddadii ay la wareegtay shirkadda d b wel. marka ugu horeysa dekedii deegaankeedu aad iyo aad buu u nadiif yahay. shaqaalihii baa la tababaray, kontaragyaal la siiyey, xuquuqdoodii baa la sugay, inshuuranay ku jiraan. taasi waa xagga markaasi maxay ahayd shaqaalaha. dhinacyada kalena waxaa laga sameeyey markaas horumarin gaar ahaan waxyaabaha dhoofaya konteenarada u fara badan. sanadkii anagu aanu joognay 2017kii ama 2016kii number ilaa 67 kuna baa ka soo dego waxa loo yaqaan TU-ga. sanadkii dhaweeto 100 kun buu ahaa. taas waxa ku tusaysaa 30% konteenarada tan 20ka fiida inay korodhay. waxa kale oo iyaduna korodhay 40% cargo-ga kan soo dega. waxay la keenay qalabkii fududeynaya hawsha in lagu qabto. shaqaalihii waa la carbiyey, shaqaale kale oo expertna dibadda laga keenay, taasoo fududeysay markaa in kor ay u qaadanto wax soo saarkii dekedu. waxaanay ka sii fiicnaanaysaa hadda dhismaha markaa la bilaabo insha allahu tacaala dekeda terminaalka cusub. cabdi cabdilaahi xasan waxa uu beeniyey dekedu inay qayb ka tahay sicir bararka Somaliland ka jira. arrintaa runtii waxba kama jiraan. marka ugu horeysa lacag Somaliland iyo lacag dollarba dekeda waa lagu qaadaa. marka DB Well iyo SBA midna uma baahna lacag dollara. qaybta maraakiibta ama wixii international customerka ama muxuu ahaa macaamiisha caalamiga ah oo dhan lacag dollar baa laga qaadaa. kuwa gudaheena qaarkood sida xoolaha badeecadaha qaarkood la dhoofinayana dollar baa laga qaadaa. wax ka mid ah iyo laanka labadaba. marka sida aawadeed horta marka hore DB Well iyo dekedu dadka DB Well iyo SBA uma baahna lacag dollara. lacagta laanta ah ee laga qaado markaasi adeega dekedu ay bixisay iminka DB Well qaado. lacagta mushaharka lagu bixiyaa, qarashaadka kale lagu bixiyaa. dhowr iyo 10 shirkadood dekeda ka shaqeysta ayaa iyaguna lagu bixiyaa qarashaadkooda. marka sida aawadeed uma baahna mar haddii wixii laantii soo gasho qarashaad iyo mushahar iyo hawlahaas ay ku baxdaa, uma baahna in la sarrifo lacag dollar oo ku filanna marka DB Well iyo SBA labadaba runtii way soo gashaa. arrintaas sicir bararka wax lacaga oo ay sida u dhigayo daily baa loo sarrifaa uu leeyahay waxba kama jiraan. haddii DB Well wax dirato waa haddii sida shirkadaha kale caadiga qalab dibadda ay uga baahato dee marka lacag adag baa loo baahanayaa. taasna in lacag ku filan oo adag way haysataa DB Well uma baahna marka inay soo sarrifato. marka arrinta waxaanu hubin baa suuqa la geliyay waxba kama jiraan arrinta inuu hubiyo bay ahayd anagana weydiiyo ama baananka la shaqeeya shirkadda la weydiiyo. waxa kale oo maareeye ku-xigeenku beeniyey wararka sheegaya in dekeda ay ku dhinteen tiro dad ah oo gaadhaya 9 qof oo ka mid ah shaqaalaha dekeda. arrintaasoo isla iyadana uu sheegay gudoomiyaha xisbiga wadani. anigu arrintaa ma ogi, anigoo ah maareeye ku-xigeenkii dekeda, maareeyuhuna ma oga. anaga noomu imanin waxba kama jiraan. waxa laala wax ka jira ma jiraan. waxaanu anagu ognahay DB Well markay timi inay leedahay markaas standard caalami ah oo international ah oo Kenya ka horumarsan oo ay ka mid tahay qalabkan la xidhanayo, ay ka mid tahay ID card loo sameeyay sida aan loo gelin, ay ka mid tahay qalabkan markaas dekeda lagaga shaqeeyo oo muxuu ahaa fiican oo aad iyo aad u fiican, ay ka mid tahay dadkii oo la tababaray. marka waxyaabahaasna waxay sababeen in hoos u dhaco dhaawacyadii iyo dhimashadii ka soo gaari jiray markaasi dekeda. kullen waa meel laga shaqeynayo, shaqa ka socoto, walibana kuulii bini aadamkuna meel ka shaqeynayo exodonku uu imanaya. 9 qof ee uu leeyahay waa dhinteen dee ha soo coday anagu ma hayna markaas. runtiina aad iyo aad bay u yaraatay intii markaasi ay DB la wareegtay. walibana siyaasadda cusub ee muxuu ahaa priority-ga koowaad in dadka iyo alaabada ka soo degaysaba la badbaadiyo ay sameeyeen. markaas hoos bay u dhacday, waana priority-ga koowaad. ninka haysta qaybta wuxuu ka baawarroon yahay qaybaha kale oo dhan si markaasi loo xaqiijiyo dadka muxuu nafahooda iyo alaabta property-ga in markaas ay nabad galaan. marka arrintaa waxba kama jiraan, ha soo cadeeyo. shaqaale dhintay oo 9 qof gaadhaya ma jirto. ma jiraan, absolutely ma jiraan. marka anaga horta ciro dekedu waa deked qaran. muxaafid iyo mucaarad waxbaa lagala soo degaa. muxaafid iyo mucaaradna way ka shaqeeyaan labaduba, way ka xoogsadaan. marka sida aawadeed anaga noomu iman waxba nagama weydiin arrinta. DB Well uma tagin baan filayaa. marka meel warkaa ka keenay dee anigu ma ogi. waxaan yara moodaa gudoomiyaha wixii dhagtiisa ka soo baxa
in markaasi markiiba ay bishmihiisuna markaasi ay ku dhawaaqaan isagoon iska hubin marka arrimaha waxaan leeyahay ha soo caddeeyo watay maray wax kale oo jira buu leeyahay shaqaale ajaanib ah oo meeshii ka shaqaynaya oo qabsaday shaqadii ay qabanayeen dadka muwaadiniinta shaqaale muwaadiniinta taa iyada maxaad ka leedihiin shaqaalaha horta shaqaalihii dekada dad ilaa 900 ku dhowdhow oo dekada u shaqaynayay waa tii la wareegtay DP World haddana shaqaalihii kale ee xamaalinta nimanka kan iyaguna murqumaalka maraakiibta nimanka Stevedores ka leeyahay wada hadal baa u socda DP World inay la wareegaan bayana laga yaabaa oo mushaharkoodii waxoodaba ay hagaago marka shaqaale inagu filan waynu haysanaa shaqaalaha expert dadka loo yaqaan meelaha qaarkood iyo kuwa shaqaalaha training gareeya oo dadka khibradda training gareynaya labada nooc baan loo ogol yahay dawladuna way ogtahay oo way ilaalisaa annaguna waanu ka warhaynaa marka way joogaan nimankaasoo ama dadka khibradda badan leh ama training gareeya shaqaalaheena marka already shaqaalaheena trainingkeedii way soo qaatay halkan way ku qaateen dibaddana qaar baa loo diro dhawaan ka soo qaatay Taiwan ka soo noqday waxaan jiraa Thailand ka soo noqday marka waxa weeyaan arrintaas waa training iyo marka expert aan laga maarmayn iyo dad khibrad insha Allah waxaanu filaynaa mustaqbalka soo socda in laga maarmo arrinta marka laakiin dadkan uu sheegayo waxba kama jiraan badleed dadka waxba kama jiraan way jiraan shaqaale ajnabi oo labada group isugu jira laakiin waxa meesha ka shaqeeya ee ugu badan dekadu waa meesha ugu badan ee shaqaalaha Soomaaliland ay ka shaqeeyaan waxaanu hadda oran karnaa marka DP walla waa shaqaalaha waa meesha wax shaqaaleysay ugu weyn ee Soomaaliland shirkadaasi baynu oran karnaa marka arrintaasi sida aawadeed dadka khubarada mooyaane ma jiraan dad aan loo baahnayn ama khubaro ahayn ama aan dadka magaranaysaa ay tababar bixinayn ma jiraan halka jooga aan loo baahnayn shaqaale kuuli caadi ah sidoo u dhigay ma jirto oo meesha ka shaqeeya Nuruddin Culi Joog Ariel TV Hargeysa